السلام عليكم داود يال سو دوادا وانيغو انسلا iyo madaale in badan waxaan uga baratay anagu halkan soo fadhiisano barnaamijyo kala xiiso badan barnaamijyadii su'aalaha barnaamijyadii sheekooyinka anagu fadhina aan sheekeynay intaas aad nooga barateen laakiin caawi ka duwan tahay caawa aniga madaale maxaan idin wadnaa caawa waxaan idin wadnaa saad xagan ka aragtaanba saliid ba xagan taalo ما عاوز سليد ما كهال دونا قبل ولا شيء oo ismaha la dhaha sameeyay saliidan magaceedana mustabshir ali yiraahdaa saliidan baan rabnaa caawa inaan falaqeyno wax tarkeeda iyo faa'iidooyinka ay leedahay soo dhawo madaalo caawa waan dhawahay aan salay asxaabtana aad baan salaamahayaana waxaan ku weydiiyay saliidan aad meesha ku soo saftay maxay ahayd horta madaalo saliidan adii dabcan waxa ka mid tahay asxaabta caawa saliidan ay ugu horeyso madaale anigu laakiin saliidan waan isticmaalay oo in badan baan soo isticmaalay saliidan yani waxba faa'iidadeeda anigu si fiican ma tiida casar sheegayba maya ma aha ma ka duwan tahay saliidan mustabshira heer oo la dhahaa faa'iidooyin fara badan bay leedahay barnaamijka kuwa aad nagu arki jirteen ma aha mustabshira mustabshira haya oil mustabshira haya oil af Soomaali ahaan kulay wax kala lagu dhahaa mustabshira saliidani madaxay u roon tahay waxa iiga maragoo marsado isticmaala marwada walaasha isticmaasho balayada noo macnayn doontaa bal si macnayo meel kala tilmaantay horta wuxuu maxay u roon tahay xagee dawo ka tahay hadii la ku sameeyo bal noo jilay wala si jilay baasha ilaa waa isticmaali jireen waa markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay anigu saliidan asxaabta dhamaantood meel kasta joogan asxaabta page-keena ee ku xidhan YouTube-radeena madaalo official iyo Ansel TV iyo asxaabta page-keena ku xidhan dhanka Facebook dabcan saliidan anigu horaan u isticmaalay oo saliid ugu cusub ma ahan madaalina dabcan uu isticmaalayaa iyadana isagana natiijada wad ka sugi doontaan insha Allah saliidani geeraar baad u sameysabo geeraarka igu soo celi hal mar ma gabaygan kugu soo celiya mise geeraarka horta yaa ku sheegay inaan geeraaray geeraarka waan geeraaray mustabshire saliidani madaxay u roonta waxa iga maragoo marsado isticmaalo marwada walaasheedii ada isticmaalay soo ma aha ya wahagaag aan si macneeyo meel kala tilmaamay bidaarta timaad huf ku dheen saa un baad muruq ugu siinaysaa saa un baad u marinaysaa dhag markaba way soo baxayaan ama saas ma ahayn aad weyn maxaa kale u fiican tahay xaga kale u fiican tahay saliidan horta waxay kale u fiican tahay timihii jajabayay kuwii googo'ay waliba saliidan waxaan u sharaxayaa asxaabta saliidan hal looma isticmaalo labadaas loo isticmaalaa labadaas isku wataan hadda labadana way isleeyihiin saliidan oo kale qofka markuu maxay to caadi ahaan oo kale uu isticmaalaya habeenkii tan sidoo kale qofku wuxuu isticmaalayaa sida tan subaxii baa la isticmaalaa tan habeenkii tan saliid ahaan uu isticmaalayaa taa saliid ahaan baan u isticmaalay tan seen u isticmaalay tan habeenkii bas oo kaliya isticmaalta subaxina wada madaxan baan marsadaa soo ma marka saliid wajiga ma marsan karaa saliidan wajiga ma marsanaysid waa madaxa oo kaliya madaxa oo timaha oo kaliya ansalay rag badan oo saaxiibada oo bidaar ku raagtay baa jooga ragga bidaartu ku raagtay baashan ma la huba haday ismarsanay timuhu soo baxayaan rag badan oo saaxiibada aan Turkiga u biisii yiraahdeen meel meeshan oo Turkiga baa lagu sii socdaa maadaama ay baashan dawadreed baa laga sameeyay anu waxa isleeyahay ragga saaxiibada ee Turkiga u sii socday kuwa ku hamiyay inay Turkiga aadaan iyo kuwa iska bajoogay waxa hayninba anu waxaan leeyahay saliidan horta madaalo saliidan tinta dadka Turkiga aadaya nimanka Turkiga dabcan bidaarta هذا لفتك كوسة ساعتها هاي هبارن أوكي وان هاي هبارن لفتك ده يقوم عارم كلام مركب حرب وحير إنه وش راح فائدة إلى ده هاي دتك بدار 30 سليدن ووفي عنتها هاي سيدا كله نهبلها وتنتو كجورنتو أما تنتو أي كجوجو أيسو أيضا ووفي عنتها هاي سيدا كله وفي عنتها قفك هدوم مدحنون وقباء بدن أو مدحنون كا مروا المدح نيرو مدحنون كا قوة بدن با نيرو مدحنون كا قوة بدن با سليدن قفك وإذا شنيسا مدحها قفك مدح مركو حنون أيو ما شاء الله ترتيب مدحها waxaan ku yiri ku dagaya madaxu ku qaboobiya maxaa wax fiican baad faa'iidooyin fara badan bay leedahay sidoo kale tinta waxa laga sameeyay saliidan waxa laga sameeyay dabcan xaqan sida ka muuqato timir xabada soode liindanaan adigu
waxyaabaha dabiiciga ah baa laga sameeyay sida xagan aad ka arkaysaan ama ka arki doontaan dad aad iibsateen saliidan madaalo saliidan sidoo kale waxay faa'iido u leedahay tinta way jilcinaysaa qofka hadii tintiisu yar adkayd way jilcinaysaa rag badan oo saaxiibadooda tima adag baa jira ma jilcinaysaa tinta way jilcinaysaa madow bay ka dhigaysaa tinta way madoobeynaysaa tinta madow iyo jileec labada way leedahay googana way ka jarjaraysaa tinta daadanayso dhan baashan waxaan la heli karin baa aawa keentay aad weyn waxaan la heli karin marka saliidan mustabshira la yiraahdaa dabcan telefoonka dabcan shaashada aan kusoo qori doono ayaad kala xiriiri doontaan waxaad kala soo xiriiri doontaan mustabshira saliida kambaniga mustabshira kala soo xiriiri doontaan waa saliid dabcan idin anfici doonta ansal baad kala soo xiriireysaan ansal naaniga caanaha la kala soo xiriiray saliida la kala soo xiriire adiga saliidaha la kala soo xiriiro saliidan meesha laga helayo wixii dadkii markaa iyo macluumaadkeeda oo dhan ani waa laga helaya adaa laga helayaa saa u sheeg saliidan sidoo kale faa'iidooyin badan bay leedahay anigu waan isticmaalay oo dadka anigu hadda qof ma dhihi karo de yani dad waxaa jira wixii aan iyagoon isticmaalin dadka ka sheekay laakiin anigu waan isticmaalay haddana waa dadka u dhaarade u dhaareen adeeray haday baashu fiican tahay horta anigu labadan waan qaadani labadaasaan qaadan adeeray kowdhe waad ugu qancisay hadda kabanigana adigu ma lihid gabar Soomaaliyeed oo islaam ah iska leh ilaahay risiqeeda ha u barakeeyo waxa ay ka dabacsan tahay amaanta aad sheegaysaan ku qaato mar haday timihii gogo ay hagaajinayso bidaarta walbahaarkeeda bariyahan ee Nairobi ninkii asagoo caadi ah ma shalay waxa arkaysaa asagoo timi durba ka dhamaadeen taana waa difaac koortag labadaasaan qaatay anigu labadaasaan qaatay koortag waan qaatay dadka u dhaaro baashada isticmaalay leeyahay marka saliidan waxaan rajeynayaa asxaabta igu xidhan oo dhan asxaabta Ansel TV iyo page-ka iyo madaalaba ku xidhan inay gadan doonaan kana natiijadeeda qiimaha baasha qiimaheeda dadka u sheeg qiimaheeda dabcan telefoonka shaashada ku qoran markii la xiriiraya kambaniga qiimaheedana ka heli doonaan loona si fiican loogu sharixi doonaa qaabka ay u isticmaalayaan ma sha Allah labadaasaan qaatay laakiin saliidan aad bay u fiican tahay waxaan leenahay moogaanina mustabshira oil mustabshira oil saliidan mustabshira oil madaxay u roonto waxa iga maragoo marsado isticmaalay marwada walaashay aan sii macneeyo bidaartii kugu raagtay iyo timihii bidaartii kugu raagtay iyo timihii iska biibay barqay soo baxayaan dhag halkoodii bay ku soo laabanayaan marka mustabshira yaan la moogaanin Ansel ha loogu soo doonto adaa laga soo doonanayaa Ansel mustabshira oil yaan la moogaanin duwan product kala duwan buu idin keeni doonaa oo aad ka faa'iidi doontaan laakiin saliidan dadka u baahan madaalow inay ogaadaan faa'iidada saliidan oo dadka waliba bidaarta leh oo tinta maxay aheeto ay ka biibto u soo celisay dad badan baa jira oo aniga rag badan oo saaxiibada ku xidhan oo saaxiibo badan oo ku xidhan oo insha Allah hadii qofku cadeyn u baahan yahay inay qofki tinta u soo bixisay oo joogan ayaga laftigoodana dhawaan ka falcelin doonaan saliidan marka waxaan leenahay mustabshiraha moogaanina mustabshira hay ugu dambeyn maxaa leedahay ugu dambeyn waxaan leeyahay timihii iska biiyo bidaartii kugu raagtay timuhu ay ka biibeen baashira daweyse yaa la moogaanina mustabshira labada xabo waa la isku iibiyaa labada ana qaatay labadana Ansel baa qaatay laba horena hore bay isu haysatay in dadka u dhaaro inay baashan macaan tahay inay fiican tahay way fiican tahay anu waxaan ku qaatay maadaama aad u isticmaashay sida saliida marka soo dhameysatid labadan xabo oo soo fadhiisan doona xagan insha Allah marka faa'iidadeeda markaas aad ogaan doontaa marka waxaan leenahay asxaabta dadka oo haween oo kala madaxu saayidka u xanuuno xanuun ku badan yahay ayaga laftooda way ka faa'iideysan karaan madaxa aad bay kugu qaboojinaysaa dad waxa jira intay Turkiga tagaan tinta soo beertaan rag saaxiibaday oo farabadan baa tinta soo beertay oo baaday ilaa hadda way dhiban yihiin hadii tan isticmaal lahaayeen anu waxaan isleeyahay dadka tinta soo beertay wax badan bay kuwa laftooda waxba u taraysaa xilligan aad weyn hadda waxba u taraysaa ugu fiican dadka tinta soo beertay haya saaxiibkay aanu sii dhiibi adigu labada xababa dhiibtay maanta ma dhiibay midna waan si naasee loo kala isticmaala labadan way inay isu egyihiin wixii labadan waa la wada isticmaalaa midna habeenkii baata midna waa subaxii seen u kala isticmaala wixiina way isu egyihiin lama kala garanayo labada waxa tan oo kale dadka asxaabtustan waa saliid caadi ahaan wadu isticmaalaysa sida saliidii
oo markaas madaxa marsan kartaa oo liintaasaa ku sawiran liintaasaa ku kartaa aad weyn tanna sida kale habeenkii isticmaalayso subaxina waad iska maydhi doontaa ha tan habeenka isticmaalayso subaxina waad iska maydhi maasha Allah marka productiga mustabshirana waa la socon doontiin kuwa kale idin sawda hase ahaatee saliidda laga faa'iideysto dhammaantiin waxaan leenahay mustabshira oy